عشقيدا وعني قاكدا لو دقاي تمحيدا يركيو سيدا في أرحبيه ورحمة الله وبركاته. كلن دوعنا وناكسر مركلي فيديو عصب جنو قاعد نقول سعتان وحباب فعامل يعني قوم تنسوا هذا ماني وناكسن هبي وناكسن صباح وناكسن دور وناكسن عصر وناكسن كل شيء وناكسن أصحابتي وعصب سودا هذا أصحابتي رجعك سكر سودا هذا لما دي مسودا هذا لما دي نودي ودي علىها إن شاء الله حنا وذا إن قصة كلا إن قصة كورف لنجانك سبسكرايب نوصل الله شاركوا صاحب لو ذاك هذا ما سنتهاي سبسكرايب تقول سير لايك تلا دعنا وصي لما أنت ما سنتهي لما أنت مسودا هذا إن شاء الله وحنا وذا قصة مركز أي مال كسب ودعاء خوف كستو إسلام أو نجحنا وصينا سبتال ذي كل شيء وله عافمة تامسية اللهم آمين. يلا نبلا بقصدنا قصة وحكي عادي مريكان كا سامر إن شاء الله نبلا وحين قصة يعني وقصة صدق قفط صاصة نوذا إن شاء الله. قصة يعني أولاً waxay ku dhacday gabar lagu magacaabo Tony iyo nin lagu magacaabo Brooke iyo Tony waxay ahaayeen dhalinyaro ku nool xaafad ay ka deganayeen dalkaasi waxay sameysteen xiriir jaceylkooda kadib waxay go'aansan inay wada noolaasho yani intii isguursan ka hor ay sii wada noolaadaan ay sii wada deganaadaan kadib waxaa ka dhex abuurmay ilmo yar ah ka dhex dhashay ilmaha intuusan ka dhex dhalanin ninka wuxuu bilaabay gabadha inuu cadaadiyo oo ku sameeyo yani wax kasta oo maskaxdiisa ka maago inuu banaanka ka mamnuuco inuu yiraahdo yaa ku soo wacay yaa la hadashay yaa kool gareysay iyo wax la mid ah inuu yiraahdo ku soo wacay yaa la hadashay yaa saaniya kana gabadhii cadaadiskaas faraha badan aad u dhibsatay markii dambe wuxuu bilaabay inuu gacan qaado markii ay telefoon ayada ku hadlaysay u soo galo inuu gacan qaado inuu xurub ku sameeyo banaankii ka mamnuuco asigoo kaliya aanu bis aan baxayn qof kale ma bixis inuu yiraahdo wayna dhacdaa yani rag aanan ogoleen yani dumarkooda inay magaalada aadaan inay dumarkooda magaalada aadasma inay soo wareegayso laakiin dan marka ay ka leedahay maanta 12 kool gareynayo intee joogtaa ku aaway laag wax la mid ah laakiin taas kalsooni daraa keenaysan aaminsanahay gabadhii markuu way dhibsatay ilmo yaraa markuu dhashay yani uu dul qaadan weysay dhibka iyo kadeedku ku hayo waxay go'aansatay inay ninkan gabi ahaanba isaga tagto yani ka haajirto because qofka haduusan ku respect gareynin uusan ku xushmeyneynin nafta kuma siinayso tan kale ayada waxay tiri ilmahayga waan jeclayn aabiis ku agxaayo laakiin aaba lagu aghayn kara muusan ahayn badanaana insha Allah gadaalan faafahinta ka sheegi doona dula hiraado isla markii way ka tagtay markii asiga ka tagtay waxa isbarteen oo is aqoonsadeen asiga walaalkiis because walaalkiis markii hore guriga imaan jiray laakiin kumuusan badneen walaalkiis markii asiga wuxuu ka yahay dhowr sano walaalkiisa gabadha arkay gabadha markuu arkay guriga markuu u kireeyay wuxuu bilaabay inuu gabadha daryeel gooniyo si because gabadha waa gabar walaalkiis qabay oo ilman u dhashay marka ilmo yar ay wadataa sidii marka daryeel iyo wuxuu ku siiyay koolkoolin iyo kaaliska aragoo siiyay ninkii marka damac badnaa yani oo raba le dadka inuu gumeysto wuxuu dareemay in gabadhiisii ay ka tagtay oo yani xaaskiisii ay ka tagtay ninkaas walaalkiisa u dhawaatay wuxuu bilaabay inuu dabagal ku sameeyo inuu meelaha ay tagaan ka daba tago inuu wax allaale wixii uu doono ku sameeyo maalin maalmaha kamid ah wuxuu sameeyay labadii wiilkii iyo gabadhii isla socda oo gaari saaran uu arkay asigoo wada maraayo deedna gabadhu waxay ka aragtay miraayada oo gaariga way soo kala fireen way ka carareen wuu bursaday way ka baxsadeen haddana next day buu arkay next day marka waa marka ay dhacayso yani balaayada ay dhacayso next day wuu bursaday soo bursana marmar waxaa jirta yani markii lagu ceersado ama lagu bursado aad tagaysid meel derbi ah oo wado dambe aysan ka dambeenin meeshii tageen isla markiiba intuu gaariga sii waday intuu asiga tagin yani gaariga sii wada hooyadii buu la hadlay oo ku yiri hooyo walaalkay beeshuu joogo ii sheeg wuxuu ka sii tiri hooyo ma garanay meel uu joogo khalaas hooyadiisa buu kugu damiyay teleefankii wiilkii gabadhii buu ku daba tagay meel oo cidla oo duur oo yani aanan balaheenba qof bin aadan aysan joogin buu daba tagay
ninkii marka ninkii wiilka la dhashay wuxuu yiri gabadhii la faka ilmaha yar wuxuu mareynay gabadhan dilay la faka ninkan aniga ka celinaya la faka ilmaha yar gabadhii hayay tiri way carartay ninkii maxad ku soosan baaskoolad uu la soo baxay ninka walaalkiisu walaalkiisu meesha ku dhintay isla markii uu soo wacay wuxuu yiri ku soo socda uu cararay uu tagay hooyadiis wuxuu yiri hooyo aniga waxaan dilay walaalkay waliba waxaan ku dhiftay xabad soo marka waa kaasa hooyadu marka waxay tiri kuma qarinay because wiilkeygii baa disho kuma qarinay ku dhibay booliska ayadoo asaas tahay marka uu dilka dhacay gabadhii way soo carartay xabadii markay maqashay isla markii waxay wacdeen booliska wacday gurmadka meesha imaaday wiilkii meedkiisa laga qaaday gabadhii la qaaday wixii waxa la geeyay saldhiga la geeyay wiilka hospitaalka la geeyay meedkiisa gabadhii marka waxa la yiri dila sheeg isla markii ayadoo gabadhii aan warka sheeg waxa soo wactay hooyadii dhashay labadan wiil oo ku tiri wiilkeyga dilay wiilkeyga wuu joogaa soo marka waxaan u baahanahay in ciidan la soo diro ay wadaan diyaar u yahay in la xiro isla markii booliska wrapped safely in her arms. A couple more gunshots were shot off, and his brother just told me to call the cops. Then police get another call from a friend of Teresa Salino, the brother's mother. She was screaming, so all I said to her is, I'm coming. And I hung up the phone. She says one of Teresa's two sons had just told her about the shooting. وسoo qabtay wiilkii waxa la yiri way aad walaalkay ku dishay maxay tahay wuxuu yiri in walaalkay gabadhii aan jeclaa buu la socday gabadhii aan jeclaan waxaan dareemay inay ka agdhawaanayso saas daraadeed markii waxaan go'aansaday inaan labadooda is dhaafiyo laakiin maysan dhicin walaalkay bisaan baxay laakiin qorsheegu wuxuu ahaa in ayadana dilo asigana dilo ilmahan yarna aniga aan qaato saas waxa qorsheega laakiin walaalkay uu baa dhintay saasa marka xabsi loogu xukumo oo xabsi daa loogu xukumo because zilku uu geeso dil ku talagal uu soo ku soo tashtay qof inuu dilo saas xabsi daa ku galay gabadhii ilmaheedii yaraa ayada haysato dibka jiro wuxuu yahay horto jacayl qof loo dilaayo ma aaminsani tan kale qofka haduu kalsooni kugu qabo maahan inuu ku control kuga teleefankaaga kan maahan raggan way iska maseer badan yihiin oo maseerkooda turab waaye wayna dhacdaa in xilliyada qaar ayaga marka teleefon ku hadlayaan inaad ka maseerto ma rabaan laakiin aad marka teleefon ku hadlaysid ama asxaab la sheekaysid ama yaani qof shaqeeyay ka dhaxaysa because binaadan hada qof ay shaqo ka yeelan kartaa meel wax ka soo iibsanaysa meeshii qof aad iska soo baranaysa soo ma ahan hadii oo teleefon aad ku hadlaysid kaliya inaad jacayl ku sameynaysid laakiin teleefonkan qof kasta walaaltina ma kula soo hadli karo soo marka taas waxay ka mid tahay caqabadaha jira oo xilliyada qaarba ka dhacayeen dhulka Soomaaliyeed xitaa soo marka qisada ku dhantahay qisada idin soo koobay dhamaantood ma santihiin channelku waa xabaab anigu musen please channelka sada ku cusub subscribe no soo like share kama saxda loo daga ma santahay subscribe da ku sare no like gare no share gare dhamaantood ma santi dhabaati oo idin wada jecelahay channelka la share gare walaalayaal la share gare subscribe ka la saaro Facebook iyo WhatsApp yada email ku turturo hadaan gabar ka shaqeys qasooyna inta joogta soo barka insha Allah dhabaad waa baasantii dhabaad maxay u leeyahay wallah